السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وادن سلامي وحادين رجينا عمر دير عبادة وناكسن إي عافمات في عن إن شاء الله محاربي مانتا إنان إذن لو ذاقو إن سيابها أما وحيابها لوغا باهنيها قفكا مركو ربو إنو هوم سكولين بلعبو balse inta ugu galin waxaan rabay inaan idin mahad celiyo dadkiina igu xiran waad mahadsantihiin kana raali noqda in aan ayaantan idinka mashquulay dadkiina idinku cusubna dadka igu cusubna fadlan kusoo dhawaada channelkiis anfac adiga oo mahadsan fadlan hadii aad wax ka faa'iiday ama hadii aad isleedahay qofka loo anfaca uu kusoo gaaro si gudbi dadka kale la sii wadaag adiga oo mahadsan marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo homeschooling-ka ingiriiska siiba waxbarashada ingiriiska ba inta ugu galin wax yar waxaan rabaa inaan taabto maxaa keenay in dadka qaar ku qasbanaadaan in ma aragtay ama homeschooling sameeyaan ama wadanka ka tagaan sida la socono badankeenba waxaa soo kordhi doonto 2020ka bisha 9aad markii iskoolka lagu laabto wadanka ingiriiska waxbarasho cusub ilmaha la bari doono ilmaha oo ilaa 4 jirka ka bilaado receptionka ila bari doono waxyaabaha ku saabsan jinsiyada iyo isku taga iyo sida loo abuurmo oo wixii kale la mid ah marka sida ognahayba dad badan ayaa kasoo horjeedo anaga kaligeen ma ahan dad kale oo diimo kale heestaan kasoo horjeedaan waxaan dadka qaar waxay leeyihiin waxaan waqti ku haboon ilmaha la baro sidii ay u fahmaan ayagoo wax fahmi karo waxa qaladka ah iyo waxa saxda ah laakiin ayagoo saas u yar in waxaan lagala hadlo ma ahan sida dhamaanteen ognahayna waa waxa wax diinteena kasoo horjeedo iyo diimo kale marka sidaas darteed dad badan waxay ku qasbanaadeen in ama ma aragtay isku dayaan inay iskoolaadka macallimiinta ama head teacherada iskoolka xukumo inay arintan kala hadlaan markay policy-ga sameynayaan ee dhahaan ma sameyn kartaa xataa ma tusi ma ka qayb qaadan karnaa policy-ga cusub aad sameynaysid maadaama ana ka waalidiin nahay oo caruurteena aad haysid in badan maalintii iskoolaadka qaar way ogol yihiin iskoolaadka qaar wali ayakaaba confused ah oo had isku diyaarinayo qaabkay u bari lahaayeen iyo maxay ahayd wixii kale la mid ah horta qasab ah iskoolaadka oo dhan oo ingiriiska joogo maadadan waa inay baraan way ku qasban yihiin balse iskoolaadka ayaka badanaa iskool kasto asaa policy-giisa hoos ahaan xor u ah qaabka wax u baraayo marka that's why fursad u tahay in aad maxay ahayto la xiriirtid awoodana saartid in iskoolkaaga aad la kulantid qofka head teacher-ka ka ah aadna dhahdid arintan soo socoto waxaan rabaa inaan ka qayb qaato policy-ga iyo qaabka aad lesson planning-ka aad sameyn doontaan inaan maxay ahayd ana ku daro wixii ra'yigayga ah iyo wixii aniga dhaqankayga iyo diinteeda ogoshahay iyo sida igula wanaagsan ee aan isleeyahay ilmahana wuxuu ku baran karaa anshaxana waa loo ilaalin karaa taas waa dhihi kartaa marka mid kala jirto oo ah dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay waxaas macquul ahayn aan dhici karin taas wax og ma lahan just waxa og iskoolka iyo macalinka head teacher-ka macallin xiriirkiina sidoo yahay iyo qofkaas sidoo u rabo inuu uu ka dhigo iskoolka iskool inclusive ah dadka dhankooda jiraan oo dadkana qof fiican oo dad dhageysta haduu yahay ama haday tahay marka waxaa sameyn kartiin oo kale homeschooling ka rabaa marka focus-ka inaa saara maanta maadaama arintaas ay ku sababtay dad badan inay homeschooling sameeyaan balse mid kale taan rabay oo ra'yi inaad ku darsado oo ah horta arintan inaad ilmaha koow la sheekaysataan oo weydiisaan si adoo si oo qoto dheer adoo u galeynin si guud ahaan u weydiinay sidoo kaleeto inay og yihiin ilmahaaga arintan iyo inta ay og yihiin because waxaa laga yaabaa ilmaha qaar inay already inay og yihiin information kan ay og yihiin in ma aragtay hadana maxay ahayto hadii og yihiin ilaa intee in la eg ay og yihiin hadii aysan ogeyn marka hadii og yihiin
qaabkay u ogyihiin u dhageyso iyo qofkii u sheegay hadda ka hor adi oo sharciga intaan la bedelin ka hor ilmahaaga haddii loo sheego wax adiga oo ogeen hor amar la-aantaada maxay ahayd taasna waa mid kale oo aad baari kartid oo haddana ka dacwoon kartid. laakiin wixii ka dambeeya September xornimada oo waaridka way yaraanaysaa. so marka hadday ilmahaaga ogeen waxaa fiican in aa adiga uga hormartid xataa haddaa go-aansatid inaad wadanka ka baxdid oo wadan islaam u guurtid, because waxaan adduunka dhan waxaa isku xir waa technology. meel kastoo adduunka ka tagtay ilmahan somehow way ogaanayaan ama way maqlayaan ama meelay ka arkayaan. so marka waxaa muhiim ah adiga intay meel kale ka arkin ama qof kale ka maqlin in adiga arrintan adoo diyaar u ah aad la fariisatid oo ka wareysatid oo alshaan adoo si oo ilmahaaga da'dii ilmahaada la egyihiin adoo ilaalinayo adigoo ilaalinayo ma aragtay ilmahaaga fakarkooda iyo aqligooda, adigoo ma aragtay diinta iyo ma aragtay dhaqanka adiga oo wax badan detail ma u galaysid ma fahantay sid oo guud ahaan aa weydiinaysaa waxaas maxaa ka og tahay oo kale dad oo nuuc kale ma aragtay oo kale iyo wixii lamid ah. so marka adiga uga hormartid oo u sheegtaa dhahday dad oo waxaa soo baxay dad waxaa hadda jiro oo qoomuluud la dhaho, dadku waxay u maleeyaan inay wax cusub yihiin oo kaleeto, laakiinse wax cusub ma ahan, waa wax jiri jiray laakiin hadda mar labaad soo laba kacleeye oo kale. see kula tahay adiga aa weydiinaysaa. so markaas waxaa ogaanaya cunugaaga ra'yigiisa iyo inta information uu haayo. markuu ogaado qof adi oo furfuran oo arrinta ka hadli kara inaad tahay, waxay ogyihiin dhan aa ogaanaysaa iyo waxay ogeen. haddii ayna ogeen marka waxaa u sheegaysaa diinta iyo ilaahay wuxuu ka dhahay, waxaa u sheegaysaa dhaqanka iyo wuxuu ka dhahay, waxaa u sheegaysaa adiga waxaa ka aaminsan tahay, waxaa kaloo u sharaxaysaa biologic ahaan siduu ilaahay bini'aadanku u abuuray iyo ma aragtay iyo wixii lamid ah. markaas qof kastoo u sheega ama meel kastoo uu kasoo maqlo arrintaas wax micno weyn uma dhisayso, mana la influence garayn karo alshaan saameyn weyn kuma yeelanayso ama saameyn dhanba kuma yeelanayso haddii adiga si degan oo ma aragtay naxariis iyo fakar iyo fahan iyo diin iyo dhaqan iyo wada hadal leh ugala hadashid. qof kastoo u sheega wax micno weyn ee ka keenaysa malaha, sababtoo ah adiga daa dhahdid waxaas qofkii sameeyo diinta waxay ka aaminsantaha u sheegaysaa, ilaahay soo noo amray dadkii hore sida wixii ku dhacay, iyo haddana waxa u sheegaysaa waxaa kala hadlaysaa biologic ahaan ilaahay bini'aadanka soo u abuura kasoo bilaabo xaawi aadan oo kaleeto. baan ku sheegay ani ilmahayga waa kala hadlay, ilmo yarariisa haystaa si oo deganaana ugala hadlay, haddana way fahansanyihin dad saas inay jiraan. dadkaasna waa u sheegay ayaka xor ah, ayaka dooqooda iska leh, balse anaka waxaasa aaminsanahay, anaka diinteena saasayna ma amartay, anaga ma aragtay just caadi si degana ugu sheegaysaa. marka ilmihii marka qof wuxuu noqonaa oo fakarkiisa xor u ah oo kuu sheegaayo, adina waxaa ogaanaysaa waxa gudihiisa ku jiro ilmahaaga adiga aad ogaan karin. marka waa taas. midda kale waxaa weeye haddii aad go-aansatay inaad ka guurtid wadanka oo kale, waxaa muhiim ah ilmaha inaad u sheegtid inaad wadanka ka raraysid, sababtoo ah haddaada taladaas soo gelinin waxaa laga yaabaa inay surprise ku noqoto, in ma aragtay emotion ahaan, psychologic ahaan, waxbarasho ahaan, wax walbo inay saameyn ku yeelato hadhow kaleeto. marka waa muhiim inaad u sheegtid inaad aad wadanka kaxeynaysid, waana muhiim inaad u sheegtid sababta u kaxeynaysid, waana muhiim inaad fahansiisid faa'iidada badan ee meesha u wadid, faa'iidooyinka badan ee ka heli karaan, sida inay waqti badan helayaan ay ku ciyaaraan, xor inay noqonayaan, sida meeshaan maanta dhan sida xoolihii la ilaalinaya ahayn oo meelaha qaar kaligood ay bixi karaan ay soo noqon karaan, waxyaabahaas oo dhan inaad ka dhaadhacsiisid. markaas cunugii asagoo xiiseenaya oo farxad ku jirto oo maxay ahayd waxbarashadan u fududaanaysaa, isdhexgalka bulshada meesha cusub u wadidna maxay ahayd isku dayaaya intii tabartooda ah, adigana garab siisid insha Allah. marka usoo noqono focuskeeni ahaa ku saabsanaa arinta maxay ahayd homeschoolinga. marka maxaa lagaa rabaa haddii aad go-aansatid inaad homeschooling samaysid? homeschooling waxa lagaa rabo waxaa waaye
horta midda ugu horeysa waxaa waaye homeschooling adaa xor adaana bari kartid ama full time ama part time. Faa'iidada uu leeyahay homeschooling waxaa waaye ilmahaaga waqti badanaa la qaadan kartaa, waxaa rabtida adi bari kartaa, as long as a core subject-ka a focus-ka saaraysid sida ingiriiska iyo mathka iyo ma aragtay iyo science-ka. Kabacdi waxaa kaleeto faa'iidada uu leeyahay waxaa waaye ilmahaaga hadduu sareeyo oo hore u socdo hora u sii wadaysaa, hadduu hooseeyane waqti fiicana la qaadanaysa aad kor usoo jiidid oo meeshii laga rabay iyo meel kasii sareysa aad gaarsiisid. Marka maxaa lagaa rabaa? kow waxaa lagaa rabaa inaa maskaxiyan adiga diyaar u tahay, inaa emotion ahaan diyaar u tahay, in ma aragtay plan uu kuu degsan yahay intaada bilaabin ka hor. Haddii ilmahaaga tusaale ahaan ilmo badan aad leedahay oo ilmahaaga ay kala yihiin ma aragtay different years ku kala jiraan sanado kale like year 2 year 5 year 6 year 1 camal reception haddaa haysatid waa inaa timeka kuu kala qeexan yahay oo plankaaga ay kugu darsan tahay taas. Waa inaa adi xataa break timekaaga marka adi galaysid because emotion ahaan iyo psychology ahaan adhow ku affect garanaya haddaad si fiican adi bareegaaga soo gashanin xataa meesha iyo wixii kaloo lamid marka waxaa heli kartaa dad kaleeto adi sidaadoo kale homeschooling sameeyo, maybe qofkaasoo kaleeto maadooyinka aa kala bedelan kartiin, qofka hadduu ingiriis bara adi xisaab bar ama science bar ama qur-aanka ama ma aragtay maadooyinka kaleeto oo badan. Marka waxa ugu muhiimsan marka adiga 100% hubtid oo diyaar tahay maxaa waaye waxa lagaa rabo marka sida idin sheegay horey adaa ama waqtiga dooran kartid. So waxay ku fiican tahay waqtigaa rabtaa soo kici kartaa, waqtigaa rabtaa naseexan kartaa, sababtoo ah adaa manage gareynaysid waqtigaa soo kicaysid. Ilmo oo rush ma daarti 9 camal hadday soo kacaan 10 camal haddaa bilaawdid adaa plankas dhan samaysanaysa. So faa'iidada uu leeyahay taas waaye oo ugu muhiimsan. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad ka heshid caawitaan qolyaha waxbarashada ee xaafadaada, so ama trainino ama information ama resources inaad ka heshid. So ayakana u tag wareyso ku dheh ani waxaa go'aansaday ama ku fakarooyaa inaa ilmahayga homeschooling ka dhigo, maxaa igu soo kordhin kartiin, maxaa iga caawin kartiin. Haddii ma aragtay uu ilmahaaga iskuul ku jira hadda maxay ahayto waa inaa iskoolka u sheegtid oo dhahdid ilmaha homeschooling aan rabaa inaan sameeyo, waqtina siisid. Kabacdina iskoolka waa inuu kuu ogolaado inaad maxay ahayto sidaa samaysid maadaama xor u tahay go-aankaaga. Maxaa kaloo u baahan tahay haddii ilmahaaga ay yihiin oo kaleeto haddii ilmahaaga iskool weli gaarin 5 sano ka yar yihiin qofa u baahan tahay inaa u sheegtid ma ahan, meeshaa kasii wadi kartaa hadhoodii ilaa xataa waqtigii iskoolka la gaaro. Haddii ay kula soo xiriiraanne waxaad leedahay homeschooling ayaa go'aansaday inaa u sameeyo. Waxaa laga yaabaa inay hadhowdi ku weydiiyaan waxaa bartin tus iyo waxaas lacala. So waa muhiim inaa ma aragtay recording samaysatid oo waxaa maalin kasta bartid meel dhigatid, file samaysatid because taas hadhowdi waxay kaa caawinaysaa xataa adi naftaada inaad ku noqotid gadaal wixii ay soo barteen, waxayna soo baranin, wixii idinka dhimaan, wax idin dhammaystiran aad ogaatid, dib ugu noqotid markaa fursad u heshid oo kaleeto haddii ilaahay idmo. Haddii ilmahaaga uu aado school because of an attendance order waxaa u baahan tahay inaa lagu siiyo fasax permission u baahan tahay local authority inay ku siiyaan permission intaada ilmahaaga homeschooling sameynin ka hor. So marka taasna inaad just dalbatid haddana sugtid jawaabtooda. Marka waxaa kaloo aad ugu fiican tahay homeschooling inaa samaysid sida haddaa idin soo sheegay dadaa isla qaybsan kartiin waxbarashada, tutoraa qabsan kartaa haddii adiga aad intaa adiga soo dhisaysid ama kalsoonidaada kor usoo qaadaysid. Waxaa sameyn kartaa oo kaleeto waxyaabo practical oo badan aa u sameyn kartaa intaa core subject ka ahayn. Even xataa core subject science-ka oo kale badanaa waa practical u badan yahay which is good, mid fiican. So marka insha Allah ilaahay hanoo fududeeyo
balse anagana inaan dadaalna u baahannahay, inaa gacmaha iyo garabkas qabsana u baahannahay. qof kasto qofka kale wuxuu isleeyahay waa ku dhaantaa inuu walaalkiisa ama walaashiis u gudbiyaa muhiim ah. waxaa kaloo muhiim ah labada waarid haddii ay go-aansadaan homeschooling in la sameeyo waa inay wada shaqeyn buuxdo iyo maxay ahayd plan cad, qorshe cad u dejisan yahay ay isla ogyihiin. sababtoo ah hal waarid bas hadduu sameynayo waxyaabo kaloo badanaa dhaxda ka baxaayo. maxay ahayd inay u kala caddahay qof kasta iyo wuxuu baranayo. ilmaha naftooda inaa usii sheegtid homeschoolna rabaa inaa kaa dhigo sanadka soo socdo. sababtan u sheegtid, sababtan markaa u sheegtid kabacdi aad ka dhaadhicisid faa'iidada ay leedahay inaad homeschooling sameysid, waxyaabaha ay heli karaan, waqtiga fiican ay kula qaadanayaan. waxa ugu muhiimsan run ahaantii waa waqtiga, because sidaad la socotiin wadamadan hadda waqti ilmaha yaa la qaatabo. waqtigana waa waxa ugu muhiimsan ilmahaaga aad isku fahmaysiin, maaragtay aad wax iskaga dhaadhicin kartiin. lama helo badanaa waqtigaas haddii ilmahaaga iskoolka caadiga ay aadaan. sababtoo ah iskoolka markay ka imaadaan waxaa laga yaabaa inaad dugsi geysid ama malcaamad, qof kasta si u yaqaano. kabacdina markay guriga imaadaan waa waqtigii la isdiyaarinayo inay casheeyaan, ay dhaqdaan, ay seexdaan, haddana subaxii meeshii sheekada ka bilaabmaysa. laakiin homeschooling markaad sameysid waxaa laga yaabaa maado kasto inaad si dhaqso leh u baratiin. sababtoo ah hal macalin 30 caruur markuu barayo waqti badan ay ku qaadanaysaa, balse adi hal qof aad tahay waxaa laga yaabaa dhowr caruur, 5 caruur inaa haysatid. 5 caruur waxaa laga yaabaa 3 ama 2 u waaweyn inay kaligood isdabari karaan, oo adiga un aad u baahan tahay inaad kormeer iyo dhiirigelin un aad ku haysid, kuwa kalena aad adiga garab siisid oo kale. marka insha Allah ilaahay ha noo fududeeyo wixii adag, ilaahay noo fududeeyo wixii fududna ilaahay ha noo sii fududeeyo. marka insha Allah intaasaan rabay inaan idinla wadaago. maxay ahayd waa mahadsantihiin sida mar walba ay igu taxantihiin. fadlan ha iloobin inaad maxay ahayd share iyo like saartid adigoo aad u mahadsan. wixii kaloo su'aalo ah qabtiin iyo information iyo haddaad raadinaysin tutorial guriga idin imaado iyo maxay ahayd ama family kaleeto homeschooling sameeyay inaan lisku kiin xiriiriyo, waa emailka hoos ku qoran aa igala soo xiriiri kartiin insha Allah. waa mahadsantihiin, waa inoo mar dambe oo xiiso leh haddii eebaha awooda la idmo. mahadsanidin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.